بسم الله الرحمن الرحيم aniga waa xildhibaan Cabditax Qaasim Maxamuud waxaan runtii aad kaga xunnahay maanta inuu baaqdo fadhigii baarlamaanka una u baaqdo inuusan kooramkii dhamayn maantana kulay waxa laga hadlayo waxay ahaayeen wuxuu ahaa sharciyaadka ganacsiga ama shirkadaha ganacsiga sababta ay u baaqdeen kulay waxa weeyaan waxaan dhihi karnaa waa mas'uuliyad daro waayo qof waliba mas'uuliyad ayaa saaran oo dalkan ka saaran oo xuquuq ku qaata waajibaadkii saaran qofkii hadduu fahmi waayo runtii waa mushkilo maalmaha baarlamaanka uu jirana waxaan labada soconnaa in wadooyinka shacabka inta badan laga xanibo taasoo ayada laftirkeeda wax aad iyo aad u xanuun badan ah haddana waa ayaan daro ayadoo kalfadhigii baarlamaanka uu furan yahay qaarna dalka dibaddiisa waxa isaga maqan yihiin qaarna ay muxuu ahaa iska joogaan muxuu ahaa dalkii laakiin aanay xilna iska saaraynin inay waajibkoodii qaranka ay saarnaa inay gutaan marka waxaan leeyahay waa ayaan daro waa wax aad iyo aad looga qurux badan yahay waa wax aanan micno badan u samaynayn qofka iyo mas'uuliyaddiisaba marka waxaan rajaynayaa dhammaan inay muxuu ahaa xildhibaanada sharafta leh ee walaalheena ah ama dal ha joogeen gudaha mas'uuliyad ka weyn ma lahan maanta midaan loo igmaday oo ah inay waxa weeyaan kulankan soo xaadiraan si ay u suura gasho shuruucda dalkan u xayiran iyo xukuumaddii oo iyadana waxa weeyaan u xayiran ansixinta shuruucdaasi marka waxay la tahay haddii maalin kasta ay dhacdo in kalfadhigii uu buuxsami waayo ama kooramkii uu buuxsami waayo maalin kastana cid lagu eedeeyo waxay la tahay mas'uuliyaddaasi inay dhammaan waxa weeye xildhibaanada wada qaadayaan marka in dadku ay isgartaan in garaadka waxa weeyaan meesha hadda uu taagan yahay meel ka sareyso uu tago lana garto xilka aan hayno iyo cid aan u hayno iyo waxyaabahana laga rabo waxaan rajaynayaa kulamada soo socota inay sidaan oo kale waxa weeyaan aysan dhicin ayaan rajaynayaa insha Allah tacaala waana aad iyo aad u mahadsantiin